عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. سو دواada asxaabta haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena subscribe inoo saar gambaleelka furo si aad ula socoto casharo ku saabsan barashada luqadda Ingiriishka. Casharkeena wuxuu ku saabsan yahay English conversation waa wada sheekaysiga Ingiriisida. English conversation waa wada sheekaysiga Ingiriisida. Hot talk wada sheekaysi kulul between man and woman u dhaxeeya nin iyo gabadh. Hot talk wada sheekaysi kulul between man and woman u dhaxeeya nin iyo gabadh. Woman gabadhii baa hadalka bilowda waxay tidhi, It is undeniable tani waa mid aan la dafari karin that women are the pillar of the nation inay dumarku yihiin kuwa dhisa qaranka and the backbone of the society iyo laf-dhabarta bulshada because maxaa yeelay without women dumar la'aan your life noloshaadu can't sustain ma noqonayso mid waarta ama jirta. Man ninkii baa hadlo wuxuu yidhi I am doubtful about that taas waan ka shakisanahay the only important jobs keliyata shaqooyinka muhiimka that women doing are ay dumarku qabtaan waxa ka mida keeping children inay carruurta ilaaliyaan, cooking food inay cuntada kariyaan, cleaning house inay guriga nadiifiyaan, washing clothes inay dharka meedhaan, just housework keliyata waa shaqo guri, nothing more intaa wax dheer ma jirto. Women gabadhii baa hadasho waxay tiri, You are misleading us waadna qalad fahantay. These jobs are minor working kuwani waa shaqooyinka yaryar oo woman's role doorkii gabadhu ka ciyaarto in the society bulshada. Why don't you talk about maxaad uga hadli weyday other sides dhinacyada kale. Women dumarku are learning waxbay baranayaan or teach ama waxbay barayaan. Are you blind ma indhoolaa tahay. You see that waad aragtaa. Women are learning dumarku waxbay bartaan young or old ha weynaato ama ha yaraatee waxbay baranayaan. Man ninkiiba hadlo wuxuu yidhi they learn dumarku waxa wax bartaa 20% boqolkiiba 20 and 80% boqolkiiba 80 lose their time waqtigooga waxay ku lumiyaan by watching useless films iyagoo daawanaya filimaan bilaa faa'iido ah. Women gabadhii baa hadasho waxay tiri if you watch useless films haddii aan daawano filimaan bilaa faa'iido ah you eat useless thing waxaad cuntaan shay bilaa faa'iido ah which can harm kaasoo waxyeeleynaya both yourself and health labadaba caafimaadkaaga iyo naftaadaba. You lose your economy waxaad ku lumisaan dhaqaalihiina by chewing gum idinkoo qaad ku cunaya, drinking alcohol idinkoo ku cabaya khamro, gambling idinkoo ku ciyaaraya khamaar, and it is the only man waana ragoo keliyata who's still waxa waxada, rob waxa wax dhaca, deceive waxa wax khiyaameeya waa ragoo keliyata, and sometimes marmarka qaar they tell us rag waxay noo sheegaan annaga white lies beeno cadcad and hollow love iyo jacayl khiyaaliya while halka women are their homes halkay dumarku joogaan guryahooga. Man ninkiiba hadlo wuxuu yidhi you believe waxaad aaminsan tahay false idea fikrad been ah and I am totally disagree with you gebi ahaanna kuguma raacsani anigu. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada iyo dhegeysiga fiidiyogan.